تفسير كينان وسورة قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق وسورة كوبان شن آيات سورة يا سورة الناس قل أعوذ برب الناس رسول كين صلى الله عليه وسلم markinin yahuudi oo sirxay ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo dajiyay oo ku yiri nabi maxamed oo ka gaashaamo oo labadan suuradood akhriso rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu akhristay ilaahay sixirkii uu ka caafimaadiyay oo ku caafimaaday labadii suuradood markuu akhristay haddaba aynu gudagalno tafsiirka bismillahir rahmanir rahim magaca Allah ayaan ku bilaabayaa in naxariista guud iyo mid gaar ah naxariista qul a'uudhu bi rabbil falaq waxaad tiraahdaa nabi maxamedow ilaaha waaga dilaaciyay ayaan magan galay min sharri ma khalaq wax alaale wuxuu abuuray sharkiisa ayaan ka magan galay wa min sharri ghasiqin idha waqab habeenku markuu madoobaado wax alaala wixii soo dhaxgala ayaan ka magan galay wa min sharri naffathati fil 'uqad kuwa sixirka isku gungunta ee ku tufa ilaahay ayaan ka magan galay wa min sharri hasidin idha hasad ka waxaasidaya ilaahay ayaan sharkiisa ka magan galay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu nin yahuudi ah sixray ayuu ilaahay soo dejiyay suuratul naas iyo suuratul falaq labadaas suuradood ayuu rasuulku akhristay mar walba wuxuu caadeysan jiray rasuulku inuu akhristo markuu akhristana gacmihiisa ay ku tufi jiray jirkiisa oo dhan marin jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii dambana uu ku caafimaaday inkastoo ay badanayaan xaasidiinta iyo sixiroolayaasha mar walba walaal akhriso sii sheeri kareen muuqaalkan walaal oo gaarsii ummadda muslimiinta waa ku ajar walaal oo walaalkii maxamed wardi cali oo idileh muuqaalkan muuqaalku xigeenta ku kulmi doono insha Allah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh